Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan subax wanaagsan meel walbo dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada masalsalka qof oo lansaday canshaqa xalqadii maanta cusbeyd 324 xalqadaasi ayaan falanqeyneynaa saaxiibada qiimaha badan qofkii kanaalkeena ku cusub subscribe ha saarto gambaleelkana ha iloobinayso masalsalada degdeg idinkuugu soo dhacaan sidoo kaleetana muuqaalka share inoo dhaha muuqaalkana like inoo saara waa mahadsantihiin waxaan gudagelaynaa falanqeynta xalqadda waxay ka bilaabanaysaa Firaad iyo Baaqi oo wada hadlayaan qolkiisa ayay ku jiraan Saayina way dhibsatay in Baaqi ay timaaday ama Baaqi ay meesha timid si kastay ahaataba Firaad wuxuu dhahay Baaqi haddii aan ku dhahay bax macnaheeda waa bax maanta oo dhan inaan hadalka kusoo celceliyo ma ahan waa inaad baxdaa Baaqi waxay leedahay anigu waxaan halkan u imaaday inaan arko xaaskaada la jeclayda ahayd siday noqotay xaalkeedii inaan ogaado ayaan u imaaday adigana waxaad i leedahay bax macnaheeda muxuu yahay Firaad wuxuu dhahay Saay looma ogola dad badan inay soo booqdaan Saay waxaa loo diidayaa buuqa hadalla in lagu durduro ama waxyaalo hor ay soo xasuusato halkaasna caafimaadkeedii ayaa ku nusqaamaya haddii qiirooto ama laga caraysiiyo ama laga ohaysiiyo idii ayaaba hadeer hadalkii xitaa dhibayo oon hadlaynin aniga xitaa inaan usoo galo ma dooneynin ooyo way ii caraysneyd laakiin Saida ayaa i dalbatay oo Firaad hal iigu yeero oo dadban ayay tiri inkastoo afka isan ka hadlin sidaas ayaan ugu imaaday mooye uma imaadeen adigana waxaan kaa codsanayaa adigoo xaalka Saay fiirinaya inaad iska tagtid markaasi Baaqi waxay leedahay sideed sidaas igula hadli kartaa aniga yaad ii malaysay ma qof shisheeye ah ayaan noqday ma qof ajnabi ah ayaan noqday maxay tahay soo qoyska kama tirsani qoyska qof xanuunsan sooma soo booqan kari halkan waxaan u imaaday inaan Saay soo booqdo adigana waan ku arkay laakiin adiga hadalkeygii iyo anigoo dhanba markaad ii aragtid qalad ayaad ii fahamtaa Firaado waxaad ogaataa inaad markaasi burburinaysid xiriirka naga dhexeeya kaasoo ah wiil iyo dumaashidiisa xiriirkaas xitaa waa tixgelin la-dahay xushmad ayuu kaa mudan yahay xiriirkaas ayay leedahay Firaad wuxuu dhahay waxaan kaa codsanayaa inaad baxdid halkan buuqa ka abuurin Saayina way xanuunsan tahay xaaladii ku sugan tahay fiiri adigoo intaas qiimeynayo fadlan iska bax Baaqi waxay dhahaysaa anigu fiyoorahan waaba keenay ubaxan aan keenay ma ceshanayay bal adigoo hoo qabso ama qashinka ku rid ama haysta idinka idin taala Baaqi way bixi rabtaa Firaadna wuxuu leeyahay ordo iska bax markaasi waxay leedahay fiyooraha mid ka mid ah ama kulligoodba Saay madaxa waad u suri kartaa ilaan timaheedii si fiican ayaad ugu hagaajisay fiyooraha haddii aad u surtidna way kusii qurux badnaanaysaa ilaan adiga waxaad tahay nin raali ah yacni xaaska raali ayaa la dhahaa isagana sidaasay leedahay marka xaaskaada si fiican ayaad u daryeeshay bal fiyoorahana ku dhammaystir quruxdeeda soo baxday sidaas ayay ku dhahaysaa Firaad wuu dhibsanaya hadalladeeda Saay idana iyadoo sariirta saaran ayayba dhibsanaysaa halkaasoo Firaad u jiisanaya dhankii Saay waxaana leeyahay isagoo Saay la hadlayo Saay fadlan hadalka Baaqi waxba ha u atixraacin way iska hadashaa waad ogtahay hadalkeeda haddii aad tixraacdid waad sii xanuunsanaysaa marka hadalkeeda ha sii raacraacin ayuu dhahaya muuqaalka xiga waxaana la tusaya Bulkid oo imaanaya Samrad ayuu la hadlaya wuxuu leeyahay Samradoo hambaliyo waxaan soo helay dhakhtar fiican hadaladii u dambeeyay oo Firaad ku lahaa Baaqi waxay ahaayeen markuu Saay kasoo jeestay ayuu Baaqi ku yiri Baaqi maadaama aan anigii Saay ka aamusannahay miyaadna ciqaabaysaa oo waxaad doontid miyaad ku hadlaysaa oo afkaada ayaa kuu furan miya ogow in lagu jawaabi karo laakiin hadal walba oo adiga aad dhahdid waa lagu jawaabi karaa balse waxa loo aamusan yahay waa duruufo jiro sida awgeed iska tag buu dhahaya ninkii Bulkid ahaa sheekadiis baan idiin wadnay Bulkid wuxuu leeyahay haddaba Saay waxaan usoo helay dhakhtar fiican
kaasoo dhanka codka u furi kara, si fiicanna u daaweynaya. Gordhowna markaasi waan la kulansiinaya oo kulankaasi waan diyaarinaya. Inta ka horeysa ma doonaysay in la dhibo oo loo galgalo, sidoo kaletana halkaasi ay ku qiirooto ama laga careysiiyo ama laga oheysiiyo, iyadoo waliba aan hadli karin. Haddii laga careysiiyo ama laga oohiyo, arrinkeeda wuu sii cuslaanaya, hadhowna daaweynteedii way adkaanaysaa. Marka hala ilaalisay inta dhakhtarkaasi aan kala kulansiinay oo laga daaweynayo. Samrad wuxuu la hadlayaa Baaqi, wuxuu dhahayaa orod guriga iska aad, waad u jeedaa xaalka siduu yahay. Anigii Firaad ayaa sii joogayna. Dhankii qoyskii Jafan haddii aan u laabano, dadkii sidaan wada ogeyn isbitaalkii ayay kasoo noqdeen, gurigii ayay imaadeen. Markaasuu Ninaad wuxuu qabsanaya Kirishma iyo Sonali oo iyaga guriga ku hareen. Dadkii baxay ma aysan raacin oo isbitaalka ma aysan tegin, Saayina ma aysan soo fiirinin. Markaa Ninaad wuu qabsanaya labadoodii, wuxuu dhahayaa maxaa labadiina idinka reebay dadka oo Saayi aad usoo booqan weysiin, bal ii sheega. Kirishma ayaa marmarsiyo keenayso, waxay leedahay ilaan guriga waxaa u dhex yaala Bhagwan oo Hindooga caadada u leeyihiin ay halkaasi ku cibaadaystaan. Waxay leedahay Bhagwankii inaan ka tagno ayaan diidnay, oo guriga haddii kulligeen aan bixi lahayn oo kaligiis guriga looga tagi lahaa, musiiba dhici lahayd. sidaa wada ogtihiin caadadii dhaqanka wuxuu yahay inuu qof guriga ku haro ama laba qof uu guriga ku haro. Sidaa awgeed anigii Kirishma Bhagwanka ayaan u harnay oon ilaalinaynay. Sidaa bay leedahay Sonali. Markaasuu Ninaad wuxuu dhahayaa haddiiba aad sidaas u harteen, hadeer maad baxdaan, anaga waan imaanay, labadiina baxa, orda Saayi soo fiiriya, xaalkeeda caafimaadna soo ogaada. Markaasay Kirishma iyo Sonali haddana waxay dhahayaan sharciga guriga miyaan jabinaa, ilaan hadeer waa xili dambe mar haddii la gaarana haweeney gurigan ka mid ah guriga inaysan ka bixi karin waad ogtihiin. Marka Saayi darteed miyaan sharciga gurigan u jabinaa, beri iyo wixii ka dambeeya waan soo booqan karnaa, laakiin hadeer waa xili dambe ma bixi karno. Marka sidaas ay dhahaan waa la iska dhaafayaa bixitaankii. Laakiinse waxaa muuqato qoyska Saayi weli inay cadow ku leedahay. Cadowgeeda hadeer ugu weynna waa Omkar iyo xaaskiisii Sonali oo weliba ii weheliso Kirishma. Inta kaleeto qoyska waxay la jiraan Saayi, Ninaad iyo Bafani. hadeer Saayi si toos ay u aqbaleen, sidoo kaleetana gabadhooda ayay ka dhigteen. Laakiin Omkar iyo Sonali ayaa weli Saayi colaadeynaya. Ninaad wuxuu la hadlayaa Omkar, wuxuu dhahayaa Omkarow, Saayi waa inaad aqbashaa, gabadhaada oo kale aad ka dhigataa, iska cafisaa, waxay hore ilowdaa, hadaladii qalafsanaa, wax walba. Markaasuu Omkar wuxuu leeyahay anigoo ilaa hadda waxaan fahmi la'ahay adiga iyo Bafani sababtaad Saayi u aqbasheen. Xoogaa yar oo xanuun ayaa soo gaaray, shil yar ayay gashay, wax walba waad ilowdeen, calool jilaac ayaad bilowdeen, waad isbedesheen, maxaa dhacay? Ninaad wuxuu dhahayaa aniga mar hore ayaanba isbedelay. Bafani waxay leedahay Sonali ayaa soo badisay, waxay leedahay aniga xataa waxaan la yaabay Bafani sidii isku bedeshay durba, waxaanba arkay iyadoo u ducaynaysa Saayi, cimri dheer iyo caafimaad buuxana u rajeynayso. Arrinkaas ayaan fahmi waayey. Bafani waxay leedahay ma fahmi kartiin idinkoo dhan, laakiin aniga waxaan ogaaday inaan qaldanaa, Saayina aan ka qaldanaa. Saayina mar walba waa gabar fiican, ha adkaato, ha hadal kululaato, laakiinse qalbigeeda waa nadiif, waa gabar daacad ah, qoyska dhanna jecel, sida dadka qaar ma ahan oo afka kuwa kaaga qoslayo uurkana ka jiran. Marka Saayi waa gabar fiican, laabteedana nadiif ay tahay. Marka sidaa awgeed idinkama fahmi kartaan bay leedahay. Bafani goobtii way ka dhaqaaqaysaa. Omkar ayaa xaaskiisii Sonali la hadlaya, wuxuu leeyahay arrinkan adiga isaga dhexbax, Saayi ha qabsanin, Bafani iyo Ninaadna ha la murmin. Dhinaca kaleetana Omkar wuxuu niyadda ka ducaysanayaa oo wuxuu leeyahay waxaan ku ducaysanayaa Saayi inaysan gurigan kusoo noqonin gabi ahaanba, oo meeshii doonto ha aado, ama isbitaalka ha ku dhimato
ama cirka ha gasho, laakiin waxaan doonayaa oo kaliya inaysan Sai gurigan kusoo noqonin, waayo guriga markay ka maqan tahay gurigoo dhan nabad buu helayaa. Omkar sidaas ayuu yiri. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa ninkii Firaad ahaa ayaa xoogaa indhihiisii ay isgaleen, waxaana jooga isla qolkii Sai ay ku jirtay ayuu kursi meesha yaalay ku seexday. Sai waxay arkaysaa inuu indhihiisii isgaleen oo uu yara seexday. Way soo kacaysaa, way dul imaanaysaa, markaasay leedahay Firaad soo kac. Way ku qaylinaysaa. Firaad wuu soo boodaya, wuu naxaya. Wuxuu arkayaa Sai oo dul taagan misana hadlayso sideedii hore u hadlayso, caadadeedii, dhaqankeedii, hadalkii ayay sidii u boobsiinaysaa. Qaabkii u hadlaysa ayuu aad uga helay, wuuna ku raaxaystay hadalkeedii. Markaasuu wuxuu dhahayaa isagii ayaa dhoola cadeynaya. Iyadiina waxay leedahay xaaladda aan ku jiro bal fiiri, adigana meeshan ayaad ii jiiftaa soo ma ahan? Su-aale caynkaas ayay weydiinaysaa. Waxay leedahay dhaqsi ii jawaab, maxaad la aamusan tahay? Waad qoslaysaa oo isoo fiirinaysaa miya? Ila hadalna, jawaab isii ayay leedahay. Way ku qaylinaysaa. Markaasuu wuxuu dhahayaa ma ogtahay halka shay aan ka helay? Waa codkaada. Maalmahan oo dhan codkaadan sugayay, inaad hadashid ayaan sugayay, ugu dambeyn waad hadashay. Halaas ayaa ii farxad ayuu dhahayaa. Saina way ku qaylinaysaa. Waxay leedahay xaalka aan ku suganahay adiga u sabab ah, wax walba adiga ku sabab ah. Waxay u canaananaysaa sida cunug ee dhasho oo kaleeto, xanaaq oo cuqdad ah iyo cara ka muuqdo. Canaanteeda cuqdad iyo cara kama muuqdo, waa mid kaftan uu ku dheehan yahay, laakiin wejiga xoogaa caruur oo kaleeto ayay ka dhigaysaa. Waa muuqaal shactira. Firaadna wuu ku qoslayaa, laakiin wuxuu ogaanayaa waxaasoo dhan inay niyadiisii ay ahayd ama uu ku riyoonay. Riyadii ayuu kasoo toosayaa, waa isla sidii shalay la saadaalinayay. Riyo unbuu ahaa muuqaalkaasi, Sai ku hadlaysay, dhab ma ahayn. Saina markani codkeedii wuu ka xiran yahay, sheekadana sheeko culus wey, gadaal baan ka ogaanaynay. Markaasuu Firaad hurdadii kasoo kacay. Wuxuu arkayaa Sai oo sariirtii saaran, wuxuuna fahmayaa inuu isaga ku riyooday uun waxay ay daldalaysay oo dhan. Intuu u dhawaado buu wuxuu dhahayaa Sai beri dhakhtar ayaa imaanaya, dhakhtarkaasoo dhanka codka wax kaa weydiin doona misena kaa daaweynayo. oo Samrad ayaa ii sheegay inuu dhakhtar soo socdo, Bulkidna uu dhakhtar soo diyaarinayo. Subaxdii marka la gaaro, Sai dhakhtarkii ayaa lala kulansiinaya. Dhakhtarka waa haweeney. Bulkid ayaa soo keenaya marka dhakhtarkii. Markaasuu Firaad wuxuu dhahay Sai markuu dhakhtarkii haweeneydii dhakhtarday soo gasho, Firaad ayay ku dhageysaa, mana sii diinayso. Inuu dibadda u baxana way u diidaysaa. Firaad wuxuu dhahay si niyad ku dheehan dhakhtarka la hadal, markana haddii aad xitaa bishimaha kala furi karin, niyadda ka hadal, dhakhtarka dhibkaada u sheeg, wax badan ayuu ku weydiin doonaa. Laakiin Sai way diiday inay Firaad fasaxdo, way ku dhegtay. Firaadna wuu joogay. Haweeneydii dhakhtarada ahayd waxay dhahaysaa Sai si fiican ayay markan usoo caafimaadaysaa, degdeg ayayna usoo kabanaysaa. Dhakhtaradii waxay dhahaysaa Sai caafimaad ahaan jirkeedii waxaan u jeedaa inay soo kabanayso, laakiin halka arrin aan la yaabanayo wuxuu yahay maxay la hadli la'dahay. Iyadii ayay su-aalaysaa. Waxay leedahay Sai maxaa kugu dhacay oo la hadli la'dahay? Ilaa hadda hal hadal xitaa kaama hayo, bal isku day inaad hadashid ood markaasi dhibkaada aad ka hadashid. Bulkid wuxuu dhahayaa dhakhtarada hortaadii joogtaa, si fiican markan isku day inaad hadalka soo riixdid ood la hadashid. Firaadna wuxuu dhahayaa maalmahan oo dhan waad aamusneyd, bal maanta hadal, codkaada aan maqalno, dhakhtaradana la hadal. Dhakhtaradii waxay dareemaysaa Sai inaysan hadli karin. Waxay su-aalaysaa su-aal. Waxay leedahay adigu ma hadli kartid, waan kuu jeedaa, laakiin hadalkeena waad maqli kartaa soo ma ahan? Waxa aan anaga hadda kuu sheegaynoo dhan soo ma maqloosid? Sai madaxa ayay ruuxaysaa, haa oo kaleeto ayay ishaaraysaa. Markaasay dhakhtaradii waxay leedahay Sai wejigeedii waxay ka aragtay murugo inay ka muuqato. Sai way qiiroon rabtaa. Dhakhtaradii waxay dhahaysaa waan kuu jeedaa, waxbaad gocanaysaa, gudaha ayaad wax ku haysaa, marka si fiican u ooy. Oohinta waxay kaa soo saaraysaa naqaska iyo wax walba gudaha kugu jiray, marka ooy bay leedahay, waxba ha ciishanin. Sai oohin ayay bilaabaysaa iyadoo ciishoonayso, yacni waxaad moodaa
inuu codka dhibayo inay hadasho, dhib badan inuu hayo, haddana aysan dhibkeeda ka hadli karin. Markaas dhakhtaradiisa ay dejinaysaa oo is adkee bay leedahay haddana. Markaas dhakhtaradii fikrad ayay keenaysaa. Waxay leedahay anaga dhibkaada inaan ogaano waa qasab iyo waxaad gudaha ka dareemaysid iyo xanuunka ku hay maalmahan oo dhan wixii aad dareemaysay, sidee wax u dhaceen, qaabka shilku u dhacay, wax walba inaan ogaano wey. Sidaa awgeed waxaan kaa doonayaa inaad qoraal ka samaysid arrinkaasi. Buug iyo qalin ama warqad iyo qalin bay u keenaysaa. Waxay leedahay ii qor wax walba oo maalmahan dhaceen, sidee wax walba u dhaceen, waxaad dhibsanaysid, waxa adiga ku dhibayo, ciddi kaa caraysiisay, ciddi aad ku faraxdid, waxay wanaagaada ah, waxay xumaantaada, wax walba qor bay leedahay. Qoraalkii ayay bilaabaysaa. Waxaana ka bilaabaysaa magaca Firaad. Magaca Firaad ayay warqada ku bilowday. Xalqadiina meeshii ku dhamaatay ayadoo Firaad uu eegayo. Sayna way qoraysaa qoraalka. Talow maxay qori doontaa? Firaad ayaa u sabab ah miyay dhihi doontaa? Firaad ayaa iga caraysay miyay dhihi doontaa? Isaga dartiisaan guriga uga soo tagay miyay dhihi doontaa? Isagaan jeclahay miyay dhihi doontaa? Isagaa wehel ii ah miyay dhihi doontaa? Kolley magaciisay ku bilowday. Ama way ka dacwoon doontaa, ama way amaani doontaa, ama way eedeyn doontaa. Waxayna ku eedeynaysaa dhibkan oo dhan inuu isaga mas-uul ka yahay, ama isagay fariin u diraysaa oo codsi waxbay u gudbisanaysaa. Maadaama qoraalka iyo wax ku qorayso waxay ahaataba xalqadii beri baan ogaanaynaa. Waxay sheegto xalqadii meeshii ku dhamaatay. Waxaan idiin raacinaynaa goosgooska laga soo bandhigay xalqadii beri la daawan doono. Goosgooska waxaana lagu tusayaa dhakhtaradii oo la hadlayso waxaana leedahay waxaad ogaataa aabahaa inuu mas-uuliyadan u dhiibay Firaad, waana mas-uuliyadaada, misena uu yiri gabadhayda ii ilaali, mas-uuliyadeedana adigu dusha kaa saaran tahay. Marka Firaad sidaas ayuu adiga mar walba kuu daryeelaa. Haddaba dhakhtarada inay hadalkaasi dhahdo maxaa kalifay? Masai ayaa warqada ku qortay Firaad wax mas-uul ah igama noqon karo. Ma hadal caynkaas ayay warqada ku qortay. Waayo intaysan shilka galin waxay dhihisay Firaad culayska inaan ka dejiyo ayaan doonayaa. Mas-uuliyadeeda oo dushiisa saaran inaan ka dejiyo ayaan doonayaa bay dhihi jirtay. Talow warqada waxaan caynkaas ah miyay ku qortay oo Firaad haddana dhibsan doona? Lama oga waxay qortay, laakiin dhakhtaradii sidaas ayay tiri. Sidoo kaleetana dhakhtarada waxay dhahaysaa Firaad waxaad ii sheegtaa maxaad Firaad u fasixi weyse maanta? Maxaad qolka inuu ka bax aad ugu diiday? Su-aashaas ayaa la weydiiyey. Dhinaca kaleeta Samrad isagana wuxuu dhahay isagoo baaqi la hadlayo, adiga ma waxaad doonaysaa aniga inaad ila noolaatid mise Firaad inaad la noolaatid? Laakiin runta waxay tahay Firaad inaad wali jeceshahay, runtana aqbal buu dhahaya. Xalqadii meeshii ku dhamaatay. Bal aan aragna waxa dhici doona. Meeshaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa iyadoo Samrad uu baaqi ku dhigay. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.